markii nabiga Madiina lagu soo dhaweeyay cadaaduna ay sii dhici rabto ayaa nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam islaan haweenay ilmo yar wadata irida ku taagan oo albaabka joogta markaa buu nabigu u soo baxay Sulaym radiyallahu anha markaa buu nabigu ku yiri haye waxay tir islaan miskiinada oo faqiirada ayaan ahay waxaan ilaa xilliga kaaga dib dhacay ee dadabadii aan kuugu imiday waxa hadiyadu anigu aan kuu keenay ma haysta nabi Allah laakiin inankan yar baan leeyahay wax u bada inanka yarna waa walad baariyo oo barakaysane adiga ha ku adeegyada haduu diratida iga gudoon bay ku jira waqfi man u bixiyay Anas markaa buu nabigu ka gudoomay Anas bin Malik 10 sano ayuu nabiga u adeegay sallallahu alayhi wasallam xanuunku nabigu la dhimani doono markuu xanuunka uu nabiga riday ayay gacanta soo qabatay Anas nabiga u keentay ku tiri ya rasuulallah khuwaydimuka Anas khadimkaagi yaraaya Anas waa kane u duceebay ku tiri saddex buu nabigu ugu duceeyay cimri dharar iyo xoolo adduunyo baraka leh iyo awlaad barakaysan wuxuu yiri Anas bin Malik baa ka sheekeeyo yiri ducadii nabiga waan helay calayhi salaatu wasalaam cimrigii waa ii dheeraadayo waxa la yiri wuxuu ahaa raggii saxaabada ugu dambeeyay dhintay buu ahaa la yiri boqol iyo dheeraad buu cimrigiisu gaadhay la yiraahdaa maalna wuxuu noqday muslimiinta ninka ugu xoolo badnaa buu noqday zamankiisii ubadna wuxuu noqday boqol anigu aan dhalay shafaac bay ku dhinteen oo waan aasay buu yiri boqol iyo 20 wiilashaydii iyo wiilashoodii oo 120 isku ana waa la cuntayo safradan la fadhiistay buu wiilashii haday inta ay yihiin gabdhihiina waa imisa markaa maxaad u malayn markaa buu ku oran jiray waa taa ducadii nabi maxamed barakadeedii arka buu oran jiray cimrigiina ilaahay waa u dheereeyay xoolihiisina waa meel u kala dhigaa la waayay awlaadna wuxuu gaadhay inuu yiraahdo boqol anigu aan dhalayna waan aaso waan duugay oo qabriga ayaan ku riday 120 anigu aan dhalay iyo kuwa sii dhaleen oo 120 isku ana sufradan wada fadhiisano waa la cuntay saacatan fi rizq wa tas cibaadada iyo taacada ilaahay azza wa jalla salaadu ay ka kowtahay xiriirka ilaahayna azza wa jalla uu kamid yahay markaan adkaysano ee meeshii la doonayay lamidkii loogu talagalay cibaadadu markay gaadho nolosheenu markaa iyada isbedilaysa inagu imika waxa rabnaa nolosheena inaan ku hagaajino lacagta nolosha ma hagaajiso lacagtu waa warqado lama cuno lacagtu waxay keentaa dhar yar oo la xidho iyo cunto marun la cuno iyo aqal yar oo la hoos galo la seexdo wax kala meelada male aadama mali وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأمضيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أبو النبي عليه الصلاة والسلام حديث معني سواء إن هذا نوح ليه حول هيجي لعقتيدي برقى أبو النبي عليه الصلاة والسلام إن آذن وحولها قميات كل هذا هي إلا صدح أمبات كل هذا هي نرات كحرة أو باليوبع يعنت عنتو أو دماتا أنت ذا مرجع أنت الكل جيّا صحراء نقطة هي واحد لبح ذو آخرك هذا هالرأي أما خير كبحي أما شر كبحي وحي أتبحي سي ماشات كبحي سي هذا خير تهينا وكاه الرئيسا هذا معصية الذنوب كبحي سنة وكاه الرئيسا أبى صدق هذا العقد درات حرتي أو باليوبة أنت عنتي أو محي نقطة صحراء لبنا إنه حنون سنبال زيارتي أو جارة أرجع له دعيا لقول سيد بوكتايو حنون كقواسده برجع زور على شيء صعتبودي هو سعود هذا كو كي كلا لزيارته ولا الناس اللي لقوها هيايو على شيء تاجن تاجن من السحرة دي بكب حضور الله جيفا من السحرة دي بسكوت تاكتور الله جيفا هذه هي الدنيا الدنيا دوا بينتاز هاي قيمة لها مركز هاسا نسكن نحن ما أنت ونكون ماني وعقل جيني كل ماضي وعمر جيني كل ماضي ودنيا جيني كل طي ومجتمعين كدمي ومسلمين تدلل كوجي الدين تودي أيكوا ين مانت الدنيا ذنا إلهي بهايا يا هيا إلهي بهايا إلهي ويديسو تو حلال ولا بإلهي ويديسو